magacaygu waa injineer Zakariya Yuusuf Xuseen ahna gudoomiyaha guud ee shirkadda Kaafiye Technology Center KTC. waxaan ku faraxsanahay maanta inaan halkan idinkala hadlo. shirkadda Kaafiye waa shirkad ku dhalatay aragti fog iyo riyo sare sanadkii 2015 una istaagtay sidii u noqon lahayd hormuudka tiknoolajiyadda Soomaaliyeed. muddooyinkii la soo dhaafay waxaan si joogto ah u horumarinay nidaamyo casri ah oo ka jawaabaya baahiyaha dhabta ah ee hay'adaha iyo ganacsiga Soomaaliyeed, laga bilaabo maamulka biyaha, korontada, nidaamka ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyada iibka. nidaam kasta oo jira wuxuu ka turjumayaa fahamka aan u leenahay caqabadaha jira iyo sida aan uga go'annahay in aan keenno xalal caqli badan oo la isku halayn karo si buuxdan wax u taraya. aan idinla wadaago taariikhda nidaamyada muhiimka ah horumarinay. 2015 aasaaska Kaafiye Technology Center KTC, 2016 adeega Kaaliye, nidaamka maamulaya korontada iyo biyaha, adeega aqoonkaal, nidaamka maamulaya dugsiyada. 2017 adeega Caawiye, nidaamka lagu maamulo jaamacadaha, iyo KTC Boss, nidaamka lagu maamulo iibka point of sale. 2018 adeega dhaqaale dhowr, nidaamka lagu maamulo ganacsiga. 2019 Caafi, nidaamka lagu maamulo isbitaalada iyo hanti wadaag, nidaamka maamulka maalgashiga wadajirka. 2021 Durdur, nidaamka lagu maamulo wax soo saarka iyo maareeya, nidaamka lagu maamulo shaqaalaha HR iyo dugaal, nidaamka maamulka farmashiga iyo xarumaha caafimaadka. 2023 aqoon darsi e-learning, nidaamka lagu maamulo waxbarashada fog. 2024 daryeel, nidaamka daryeelka macaamiisha. mid ka mid ah guulaha noo saamaxay inaan sare u kacno waa helitaanka sodda rasmiga ah ee .so, taasoo fursad weyn siisay ganacsiyada Soomaaliyeed si ay u yeeshaan aqoonsi digital oo caalami ah. tan iyo maalintii aan bilownay waxaan dhisnay sumcad adag, waxaana bixinaa adeegyo ay ka mid yihiin systemska ay isticmaalaan shirkadaha, hay'adaha, kuwa dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn, horumarinta website-yada iyo mobile applicationska, adeegyada suuqgeynta digitalka ah, tababarista iyo dhisidda xirfadaha IT-ga ah ee dhalinyarada jaamacadaha. waxaan si dhow ula shaqeynaa macaamiisheena si aan u siino xalal hufan oo degdeg ah la iskula halayn karo. maanta Kaafiye waxay si sharaf leh ugu adeegtaa macaamiisheena oo ku kala sugan caasimadda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka iyo qaybo ka mid ah bariga Afrika. shaqadeena hufan ayaa marqaati noo ah. marka laga soo tago qaybta software-rada, xarunta tababarada ee Kaafiye tan iyo 2015 waxay tababartay in ka badan 2500 arday, iyadoo bixisa diblooma muhiim u ah suuqa shaqada sida web development, programming language, mobile app development, database management, graphic design and video editing. waxaan rumaysanahay in mustaqbalka Soomaaliya uu ku jiro dhalinyarada hal abuurka leh ee si xirfad leh loo tababaray. sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda isgaarsiinta qaranka NCA doorka muhiimka leh ee ka qaadatay horumarinta ICT-da dalka. mustaqbalka waxaan sii wadi doonaa dadaalkaan ugu jirno hal abuurnimo, horumar iyo saameyn ballaaran Soomaaliya iyo guud ahaan bariga Afrika. ujeedaduna waa mid cad, inaan dalka iyo hay'adaha ku xoojino tiknoolajiyad waxtar leh, si wada jir ah dhisno Soomaaliya digital ah, hormuud u noqota gobolka iyo dunida. waa mahadsantihiin.